isbitaalka iyo heer gobol iyo heer degmo ardayda dhamaantiinba iyo halwaladeennada caafimaadka dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn bay noo tahay maanta in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay soo kormeeraan aanu kormeer shaqo ku soo maro dhismaha cusbitaalka weyn ee magaalada madaxda gobolka Soolaas caanood ka socda madaxweynuhu halkan wuxuu u yimi inuu indheeyo shaqada halkan ka socota horumarka laga wado halka uu marayo halkan iyo muxuu ahaayay dugsiga boardingka oo isagana madaxweynaha iyo wafdigiisu ay tagi doonaan gobolka Sool waa gobol weyn oo muhiim u ah xukuumadda Soomaaliland xisbiga kulmiye markuu talada dalka ku guuleystay 2010kii bishii 27 July markii 2010kii uu talada dalka la wareegay waxa uu garwaaqsaday sidii khudbadii madaxweynaha shalay ku jirtay ee magaalada Ari Cadeeye waxa uu madaxweynuhu garwaaqsaday iyo mas'uuliyiintii kale ee kaaliyaashiisa ku xeeraa in gobolka Sool uu dib u dhac badan ka jiro oo uu ka hooseeyo heerka horumarkiisu gobolada kale ee Soomaaliland marka loo eego waxa qiimeyn ay ku soo baxday in nidaamyadii kala duwanaa ee muxuu ahaayay u kala dambeeyay gacan ku haynta talada gobolkan in aan wax badan laga qaban taariikhdu been ma sheegto qorax iyo cadceed jirtana ciidina sacab kuma qarin karto 6 sano ayaa maanta laga joogaa xilliga go'aanka adag madaxweynuhu qaatay in gobolkan horumar laga sameeyo waxaynu isweydiinaynaa maxaa Sool ka qabsoomay cid Afrika maanta ma jirto maxaa Sool ka qabsoomay 6 sano oo xukuumadda kulmiye qabatay maxaa Sool ka qabsoomay 3 sano ka horeeyay ee xukuumaddii Daahir Riyaale ay gobolkan gacanta ku haysay waa 9 sano ayay xukuumadda Soomaaliland dawladda qaranka Soomaaliland gacanta ku haysay gobolka Sool oo uu gobolkan si buuxda uga mid ahaa 8 sano oo maamulka Puntland qabsaday gobolkan oo uu haystay maxaa ka qabsoomay iyadana waa la isweydiinaya taariikhda sheegaysa maxaa muxuu ahaayay dawladdii Maxamed Siyaad Barre ka qabatay 22 sano maxay dawladii rayidka ka qabseen 9 sano oo xorriyadda la qaatay ka dambeysay maxaa dawladii Ingiriisiga gumaysanaysay ka qabatay mid waliba buug bay leedahay cid Afrika taana ma jirto wixii Maxamed Siyaad Barre ka qabtayna waa la yaqaanaa cidina dafiri mayso laamiyadii iyo wadooyinkii iyo daarihii bila rafle ka dhisay Burco iyo Laascaanood iyo Berbera ayaan cidina dafirin ee loogu libhayayo la yiraahdo waa laamigii bila rafle waa kawaankii taariikhda ma guurto si kastoo loo kala arki doonaayo muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo danaynaya horumarka gobolkan waxaa laga qabtay wax fara badan waxa kamid ah xaruntana maanta dhalinyaradiina fadhidaan ardada ee wax ku barataan oo ah iskuul iyo macahad ay ku bartaan lagu tababaro da'yarta caafimaadka baranaysa shaybaarkii baynu soo aragnay maktabadii baynu soo aragnay waa wax weyn waa wax aad u weyn gobollo fara badan oo jamhuuriyadda Soomaaliland kamid ah oo ka horumar horeeyay gobolkan ayaan iskuulkani ka jirin waa ku hambalyeynaya maamulka gacanta ku haya waanu ku hambalyeynayna wasiirka caafimaadka qorshaha uu madaxweynaha ula yimi uu ku mahadsan yahay madaxweynuhu arinta uu ogolaaday ee uu amray in la meel mariyo waxa kamid ah isbitaalkan aynu maanta joogno waa isbitaalkii Ingiriisku dhisay 1948 xilliga waa ka maanta dayactirkiisa maanta inoo xigo halkan waxa la gelinayaa lacag fara badan waxaan runtii u mahadnaqaynaa muxuu ahaayay dawladaha aynu saaxiibada nahay ee horumarka inaga caawiya oo sanduuqa SDF $7 milyan gobolkan la gelinayo
waxaanu beeninaynaa wararka sheegaya inaan gobolkan horumar sanduuqa laga gelin waxaanu cadaynaynaa in 7 milyan oo dollar ay ku kacayaan saddexda mashruucan caafimaadka cusbitaalka magaalada Laascaanood laga fulinayo oo 3 milyan ku kacaya oo tafaasiishiisa halka laga akhriyo waxa la dhisayo iyo waxa la qabanayo dugsiga boardingka 3 milyan baa isaga la gelaya iyo 1 milyan oo biyaha lacagtaas waxa qorshaheeda dhigay oo muxuu ahaayay ku tala qorshaha dejiyay xukuumadda Soomaaliland oo madaxweyne Siilaan iyo madaxweynaha ka yahay ودلالكانو صاحبكان هاي وانو ku qancinay horumarka gool soo inuu beeyahay waxaanu ku qancinay oo hawl badan naga qaatay in dhulkani aanu ahayn dhul la isku haysto ee yahay dhul u baahan horumar oo u baahan in adduun la geliyo ayaanu ku qancinay waxaanu qorshaysan in laga maalgeliyo sanduuqa Somaliland Development Fund gobolka Sool iyo gobolka Xaysimo iyo Buuhoodle iyo Sanaag Bari mashaariic aad u fara badan 2017 iyo 2018 oo qorshihiisa labaad gacanta lagu hayo waxay noqon doonaan qaybaha gobolada Somaliland ugu faraha badan ayaa laga gelin doonaa iyadoo la tixgelinayo in la soo jeedo waxa qorshaha maanta dejinaya ma aha dawlad soo socota waa talada gacanta ku haysa xisbiga kulmiye oo aanu filayno inaanu guulaha aanu gaadhay dartii talada ku soo noqon doona aanu rajaynayno muxuu ahaayay seeskaanu hadda u sii dhigaynaa waxa mashaariic kale fara badan baa magaalada laga fuliyay wax wadooyin baa kamid ah 7 kilomitir oo wada ayaan xukuumad ahaan hore u sameynay imikana 6 baa gacanta lagu hayaa 3na dhamaadeen 3na saak aynu dhagax dhignay waxa kale oo la sameyn doonaa 4 kilomitir oo dambe ayaa iyadana la sameyn doonaa ka macnaheedu waxa weeye buurihii Laascaanood iyo dhagadkii inay laami noqdaan inay laami badan oo kamid noqdaan solar system baynu sameynay garoon casri oo dhalinyaradu ku ciyaarto garoonkii oo dhisay baynu roog dhigaynaa oo lacag laga qaaday bilaasha ay iyagu leeyihiin oo aynu doonayno inay ku tababartaan oo ay kaga baaqdaan balwada iyo tahriibka iyo wixii la mid waxaanu ka dhisnay gobolka jaamacadda Nugaal 900 oo kun oo dollar baanu gelinay waxa weeye waxa oo adduuna la xajacla aanu gobolkan ka qabnay iyo dadkan iyo aaminsaneen waxaan la leeyihiin ayaanu gelinay ma ahayn laaluush ma ahayn wax qasabna laga qaaday labada midna ma ahayn waa wax ay dadkeenna la leeyihiin qarankan bay kamid yihiin dalkani wax ku leeyihiin maamulka Puntland waa ku gacanta ku hayay waxay ugu weynaa xuduud ku bay doodeen waxay ku doodayeen dhiig baynu wadaagnaa haddii DNA-ga la qaado dadka dhulka yaala waxay inta badan isku DNA noqonayaan dadkan ay wada wadaagaan isdhalaan anigu qof ahaan haddii DNA-ga saaka la qaado 9 awow baa ka soo jeeda dadkan 9 awow baa ka soo jeeda waxa laga yaabaa ninka gaalka ay joogay inaanu ka soo jeedin waxaan markaa leeyahay oodi abka dhow dhintuna siday isugu xigto ayay soo xoqdaan waxaan leeyahay horumarka gobolka bartilmaameed buu xisbiga kulmiye u yahay dawladda maamulka Puntland maxkamad bal sheega wuxuu ka dhisay 8 sano annana 9 baanu gacanta ku haynay haddii dawladda Soomaaliland kulmiye 6 buu hayay waxaana waa qabtay shacbiga indheer garatada aqoon-yahanada gobolka ka soo jeeda waxaanu leenahay nala eega nala cadaalad sameeya qiimeeya bal isu kaayo eega 8 sano waxay ka dhiseen maxkamad qabiya ayay ka tageen waxaanu ka sameeyay nabad baanu ka sameeyay gobolkan ciidamadaanu keenno gumaysigu keenin inay nabadda ilaaliyaan baanu keenay waa kuwa maanta ku kala hagoogtay beelii walaala ahaa meel wal oo shaqaaqa ka dhacday markii Puntland haysatay habeen walba waa la isku dili jiray waxa la ogyahay barona la isku soo kaxaysan jiray magaalada iyadoo qoys la isku dilay magaalada aanada iyo argosgu masaajidka weyn ee Laascaanood hortiisa qoorweyntii magaalada lagu toogtay waxa weeye waxaanu leenahay gacanna waxaanu ku wadnaa horumar midna nabadgelyo midna waxaanu ku wadnaa inaanu dadka beerkooda isu xaalno isfahamsiino oo dib u heshiisiin iyo turxaansaar u samayno waxaanu leenahay walaalayaal waxaasaanu qabanay
bulshada reer Sool walaaladayada qurbaha jira ee caadifadu hayso ee aragtida qaldan wali ku qafilantay waxa leenahay war waxa iyo qulunka iyo qabyaalada waa laga baxay kaalayo gobolka nala dhisa hadda raganimo haysta oo horumar ka sameeyo oo hudheela ka sameeyo oo lacagta aad caruuraha doonaysan inaad kulaysaan ubadkiina wax ku bara oo la tartamo gobolada ila midka Professor Saleman oo ah hogaamiyaha jaamacadda Amuud daayirtiisa iyo dadkiisa iyo gobolkiisa waxbuu baray maanta waa ka intaasoo sanadooda waxa ka soo baxa Amuud intaasoo u wax bartay waxaanu leenahay waan la tartano goboladu ha tartameen tartanka nagala soo qayb gala ubadkiina wax bara ayaanu iyagana leenahay waxaanu leenahay iska daaya cunfiga colaada iyo dhibaatada idinkoo qurba jooga aad ka wadaan dadka walaalaha ee colaada ka baxay